kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Bilan Radio wararka maanta aan idin haynana waxa kamid ah wasiirka amniga oo faahfaahin ka bixiyay amarkii ahaa in ciidanka NISA ka baxaan garoonka aadan cadde ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay guddi baaris rasmi ah ku sameyn doona dhacdadii 27 December la isku dayay in lagu afgambiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha kulamo looga hadlayay caqabadaha haysta doorashooyinka oo ka socda magaalada Muqdisho ciidanka gorgor oo howlgalo ku soo qabqabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale maamulka Puntland oo sheegay in sida Al-Shabaab ay ula dagaalami doonaan dadka ka ganacsada maandooriyaasha كو وخمريلة وشباب على ديرة حكومة دقنك على ديرة كل رقم هاي بنا كل رقم هنا الكوليجته والشباب تذكر أوقاتي waxaa taariikhdu ay ku beegan tahay labada bisha koobaad sanada 2022 u diyaar garoob ah intaas aad maqasheen oo dhameystiran daawadayaal waxaan ku bilaabeynaa wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay amarkii ahaa in ciidanka NISA ay ka baxaan garoonka aadan cadde oo uu soo saaray kadib amarkii wasiirka amniga uu soo saaray ee ku saabsanaa in ciidanka NISA laga saaro garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhalatay hadalhayn badan taas oo uu faahfaahin ka bixiyay wasiirka wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in isbedelka la xiriira ciidanka NISA ay ka howlgalo garoonka diyaaradaha aadan cadde uusan khuseynin kaliya ciidamada dharcad ah ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha ee terminalka ma khuseeyo ciidanka gacanta ku haya baraha kontaroolada ee laga galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ayuu yiri wasiirka wasaaradda amniga wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu soo saaray tallaabooyin dhowr ah iyadoo badi aysan dhaqan galin waxaana dad badan ay sheegayaan in tallaabooyinkan ay yihiin kuwo la xiriira arrimo siyaasadeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddigan oo ka kooban 5 wasiir kuwaas oo baaris rasmi ah ku sameyn doono sida la sheegay dhacdadii 27 December la isku dayay in lagu afgambiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda wasiirada la magacaabay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga gudoomiye Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka waxbarashada General Bashiir Maxamed Jaamac wasiir dowlaha howlaha guud Cabdi Xakiin Xasan Aaqir wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa faray xubnaha guddiga inay baaritaan ku soo sameeyaan muddo 7 ah kulamo looga hadlayo caqabadaha haysta doorashooyinka ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uga socdaan saamileyda siyaasadeed ee dalka maadaama waqtigii loogu talagalay doorashada ay soo dhamaatay kulamada ugu badan waxaa yeelanaya qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta iyadoo diiradda lagu saarayo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha hortaagan dhameystirka arrimaha doorashooyinka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhankooda waxay kulamo la yeelanayaan qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyadoo kala hadlaya xal u helista muranka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha haysta doorashada magaalada Muqdisho ayaa waxaa la filayaa in lagu qabto kulan ay yeelanayaan golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaaraha madaxda 5 maamul goboleed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo la filayo in go'aan looga soo saaro dhameystirka arrimaha doorashooyinka ciidanka gorgor ayaa howlgal ay sameeyay waxa ay ku soo qabteen saraakiil la sheegay inay ka tirsan yihiin ama horjoogyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska gorgor ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgalka uu hogaaminayay taliyaha guutada 17aad ee ciidanka xoogga gorgor
gaashaanla dhexe dayax cabdi cabdulle ayaa ciidamadu waxa ay ka sameeyeen deegaanada kale ah bariire toorotoro mubaarak shaamgare jawharyare kuwaas oo hoostaga degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. saraakiisha ciidamada Gorgor ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan ay ku soo qabteen 6 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanada howlgallada ay ciidamada ka sameeyeen. taliyaha guutada 17aad ee Kumaandooska Gorgor gaashaanla dhexe dayax cabdi cabdulle ayaa sheegay in howlgalkaas ay sii wadi doonaan si Al-Shabaab kaga saaraan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. ugu dambeyntiina Puntland ayaa sheegtay in sida Al-Shabaab ay ula dagaalami doonto dadka ka ganacsada maandooriyaha. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabduladiif Muuse Sanyare ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha maanka dooriya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan gobolka Mudug, waxaana uu sheegay in dadka ka ganacsada waxyaabahaas ay la mid yihiin ururka Al-Shabaab. waxa uu tilmaamay in ciidamada ay amar u qabaan in dadka haddii ay ku arkaan ay toogtaan. bulshada gobolka Mudug ayuuna ugu baaqay in ay soo sheegaan haddii ay arkaan qof deegaanada Mudug soo gelinaya waxyaabaha maanka dooriya. dadka waxaa la rabaa inay ogaadaan Al-Shabaabkii aan halkan kula dagaalanay wuxuu hadda soo maray 2 arrimood. labadaa ciddii tilaabadeeda lagu arko waa argagixis ogaada. waa go'aan baan ka leenahay. koow waa khamriile waa shabaab cali dheera xukuma. dhaqanka cali dheera aan kula dhaqmi lahayn baan kula dhaqmaynaa. alkoleysta waa Al-Shabaab dadku ha ogaadeen iyadna khamra gadaya. labo kan labaad waxa weeye kuwa baabuur dhaacidda waa mashruuc isaguna wayaa waxa soo kordhay baabuurta la dhaco oo wiilal yar baabuur ay la cararaan oo meelaha lagu soo gato oo baabuurkii la waxeeyo iyaduna waa fidna labaad oo la rabo dadka in la dhex dhigo. Al-Shabaab baa mashruucaana wata. labadaba hal ogaado wiilkii gaari dhaco lagu qabto meeshii gujus uu maray iyo jeeri baad maraysaa wallahi aska tagaysaa inaan haabartaana ka daba iman karin aabaana ka daba iman karin. kii khamro lagu qabto inuu ogow hadda dagaalantana waa lagu dilin haddii lagu qabto. maalmihii la soo dhaafay ayaa laamaha amniga gobolka Mudug waxay wadeen howlgallo ka dhanka ah dadka isticmaala maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada iyadoo gacanta ku soo dhigay qamri fara badan iyo sidoo kale dadkii ka ganacsanayay. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook ee Bilan Radio iyo YouTube-keena waa inaga intaas daawade. si gaar ah ayaad ugu mahadsan tahay haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka. fadlan si aad noo dhiirigelisid boggeena like saar muuqaalkana sii share garee. mahadsanid.